magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa ilaa xalay lagu soo daabulayay ciidamada booliis oo tiro badan si ay u adkeeyaan amniga safarka imaatinka Gaboose ee magaalada Burco hase yeeshee dhalinyaro tiro badan oo godoosan oo isugu yimi wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ee magaalada Burco dhex mara ayaa ka bilaabay buuq iyo qaylo ay ku muujinayaan dareenkooda markii uu soo gaadhay wafdida uu hogaaminayay Gaboose iyagoona gaadiidka ciidanka booliiska ay meel kasta yaacayeen si ay u adkeeyaan amniga bal haddaba aynu eegno jawiga magaalada Burco sida uu ahaa maanta qaar ka mid ah dhalinyarada mudaharaadka sameeyay ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintani waxaad saaka aragtaan in dalkii la geliyey rabash in magaaladeedii ciidan la soo geliyey inaad arkaysan si suuqu firca yahay inay dhalinyaradu dareenkooda muujinayaan oo ay diidan yihiin waxaa muuse wado ee uu nagu wado haddii aanu doonayno ciduu muuse wato muuseanu yeeli lahayn yeeli mayno haddaanu nahay dhalinyarada reer Burco waxaanu taageersanay cunno weligiinba cunno taageersanay waxa laga Gaboose ma doonayno 13 November dii doorasho la qaban waayo Muuse da doorasho qaban 13 November gurigaaga kugu soo galnaa gurigaaga halka maanta waa arkaysaan dadka halka tuban waa reer Burco oo aan cid u maqnayn way soo baxeen dhalinyaro caruur haween odayaal ganacsato waxay ka soo horjeedaan sharci darrada la wado iyo ururka leeyahay la soo dhaweynayaa waxa halka kabla taagayo iyo waxa siiri baxaya iyo soo lagu qalnay warkaysaan maanta dalkii sharciga gacanta lagu qaatay ninka madaxweynaha sharciga buu laabay wuxuu ka tagay dawladnimadii wuxuu ku shaqeynayaa wax isaga u dara waa arkaysaan ummadii Burco maanta waxa uu leenahay ummadda khasab laguma maamuli karo waxaana doonaan laguma khasbi karo ummadda waa arkaysaan waxaanan jecelahay anu aan niyadeeda ka keenay inuu rajada shacabku wadaniyay waa Muuse hadduu dadku waxay ku midaysan yihiin waxay la xeerinaya hadduu garan waayo waa ragnimada la isla soo jiray ninkii carri jiray oo carrikii istaagi jiray oo istaagin waxa maanta halkan aan ku suganahay waa magaalada Burco dadka aad arkaysaan waxay taageero yihiin jamaahiirta caraysan astaantoodii ay sitaan calanka ay sitaan xisbiga wadani madaxweynaha muddada yaraayo xasantay 20 cashi waxaanu leenahay war hakaraama seegin war dalka burburka ka daa war substationada Faransa ka daa war ummadana dabada ka riixaysa ka daa waxaanu leenahay ku soo noqo sharciga dalka u yaala wixii ku doon mayso waxaanu u sheegaynaa maanta Burco magaceedii bay qortay magaca Burco maanta waa xisbiga wadani dadka maanta halkaas ugu yimi waa dadka soo horjeeda ururadan gacan ku rimiska ee uu Muuse bixi gacantiisa ku rinsaday waanu ka soo horjeednaa annagu waxaanu taageersanay oo aanu taageero buuxda u haynaa madaxweynaha ayaamaha dhow ay harsan yihiin ee 9 cisho uu harsan yahay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciro kaasana nagu wadana kaasay ummadoo dhan wadata kaasana madaxweyne noqonaya 13 November insha Allah kaasana wadana wax ka sokeeya ma rabno wax laga bilaabaan kuma kalsoonin waxaan nahay taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ayaanu nahay Dr. Gaboose ma 200 askari oo hay'ado ku ilaalinaya wax ku taraya maanta 200 askari waxba ku taraya